joogta qaraxyo waaweyn oo dhawaqooda si weyn looga maqlay magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa halkaas laga maqlay saaka hiirtii hore baaritaan aan sameynay kadibna waxaan ku ogaanay in qaraxyada laga maqlay banaanka magaalada Baydhabo ay ahaayeen duqeymo diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaaradaha Turkida ee taageera ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab in ka badan 3 ilaa 4 jeer ayaa dhawaqa qaraxyada la maqlay saraakiil sarsaro oo ka tirsan militariga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay sheegeen inay la socdeen duqeymaha halkaasi ka dhacay waxaa la beegsaday ku dhawaad 4 xarumood oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab koonfurta tuulada Daynuunay iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay ka mid ahaayeen deegaanada qaraxyadaasi laga maqlay dadka shacabka ah ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ayaa telefishinka Himilo waxay u sheegeen in qaraxyada si weyn looga maqlay gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada ciidamada Turkida ah ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada oo aan si rasmi halkaasi saldhig ugu lahayn ayaa mararka qaar waxay fuliyaan hawlgallo dhanka cirka ah tani markii dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay magaalada Baydhabo oo fadhi ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed waa markii labaad oo Turkida ay fulinayaan duqeymo diyaaradeed oo ka dhacaya banaanka magaalada Baydhabo waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in duqeymahan ay naafeeyeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhaqdhaqaaq xoog leh ku lahaa banaanka magaalada Baydhabo oo fadhi ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaan hoobiye waxay ku weerareen garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo halkaas oo uu ka soo degayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wixii inta ka dambeeyay Turkida waxaa la sheegay in diyaaradahooda ay sahmin sameeyeen si ay u beegsadaan goobaha ay ku dhumaalaysanayaan madaxweynaha kooxda Al-Shabaab taasi oo kaliftay maanta in la duqeeyo dhowr xarumood oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab ilaa hadda lama hayo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahaasi iyo haddii ay jirto waxyeello soo gaartay dadka rayidka ah laakiin mas'uul sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa Himilo u xaqiijiyay in baaritaan ay wadaan kooxda Al-Shabaab waxay maamulaan deegaano fara badan oo hoos yimaada magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah deegaanadaasi deegaanada waqooyi iyo galbeed ka xiga tuulada Daynuunay halkaas oo la sheegay in inta badan Al-Shabaab ay ka soo qaadaan weerar ay ku ekeeyaan xerooyinka ay ku sugan yihiin militariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed ee isgarabsanaya kuwaas oo mararka qaar fuliya howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab haddaba daawade wixii ku soo kordha weerarada ka dhacay banaanka magaalada Baydhabo waa inoo wararkeena dambe ma ka sheeganaysaa xanuunada kala goosida jilbaha ama simaha ma isku aragtaa barra jilbaha haddaba hadday jawaabtaadu haa tahay bishaaro iyo war farxad leh waxaa soo gaaraya markii shanaad Muqdisho Specialist Hospital 14 Abriil 2026 Dr. Sanjeb Kumar Behra oo u dhashay dalka Hindiya kuna taqasusay qallimada jilbaha iyo simaha ayaa imaanaya waxaad telefoonada shaashada kaaga muuqda ama isbitaalka si toos ah u soo booqo diiwaangelintu way socotaa